عينيه هرتو حاليري نبى ما ملكيس مالس كوتا معي حرار علينا ما أنت إلهي وحسك دقي نين عاقل إلهي أبو حسكو مناسي مسكع فيعم يجير بحين وسكا درن هذا واكو يلا وحلاس ديدو يا ولا شي ساتاه رير كاغا ما أنت كو اسم إناس كدمو ما إيه وحكا له حمان والله بالله على شي اسمه كجر إلهي دين تلقاري انقبنا الله أنا خاضو السلام عليكم لما أصحابتك وحنا نمعيه وفيشيال ميل جوجتين مالي ونكسن ومركل إيو رواية دي تحنا نوعيد اسمه نامتو hooyo iyo aabbo soo dhowaada ina dhegaysta waxaan rabaa arrin muhiima inaan idin weydiiyo siday tahay waxaan rabaa inaad iiga jawaabtiin hooyo ninkii cali ahaa ayaan soo arkay aniga aan soo arka muxume waxaan weydiiyey asbaabta uu guriga ugu maqan yahay kelmadda afkiisa ka soo bixaysana waxay noqonaysay hooyo aabbo weydii sababta aan guriga uga soo tagay iyaga ayaa dad waaweyn waxaa macquula inay dareemi karaan asbaabta aan guriga uga soo tagay marka isaga inuu iga jawaabo wuu diidan yahay idinkana dhowr mar ayaan idin weydiiyey asbaabta uu ninkaas guriga uga maqan yahay amaba uga tagay gabadhaydii asbaabta asiga annaga uu leeyahay adagu weydiiyey habarta maxay tahay anaga waxaan kaba qabna male wiilka guriga waa uu ka tagay dibna uguma soo laabanayo waaba la yaabanaa naftirkii laakiin isaga markaan weydiiyey wuxuu igu jawaabayaa hooyo aabbo weydii waayo iyagaa dad waaweyn waxaa macquula inay wax walba oo dhaca ay dareemi karaan laakiin wuu iiga jawaabi laayahay maxay ku dhacday idinkan dhowr mar idin weydiiyey waa i diideen inaad iiga jawaabtaan marka arrintan aniga ma fahmin waxay ila eg tahay arrin aad saddexdiinaba aniga maskaxda iiga cunaysaan yaa marka hooyo wixii jiro inaad ii sheegtid ayaan jeclaystay maxaa dhacay hooyo soo gabadhaadi miya aniga soo wixii jira inaan ogaado xaq uma leeyi maanta naag marwa ayaan noqday walaalkii wuxuu guriga uga maqan yahay oo uu sagseegaya inaan ogaado waa mid meesha ku jirta oo muhiim ah dee annagu dad waawan waa nahay urkubaalana hooyo isxan ku ogaan karna wiilka guriga wuxuu uga maqan yahay warma habarta hadalkeeda urkubaala miyaan nahay maxaan ogaanaynaa maxaan kaa qabanaa waa nahay laakiin wuxuu u maqan yahay hadda ma garanayno hooyo annagu wiilkaygu uu yahay managa diidan waayahay aniga wiilkaana iska seexinaa koodhe wixii jirana ayagaaba iska soo baxay waa caddaanayaan war jira waxa kaaraydaan Soomaalidu annaga wax umaataa ma dhihin anigu ma dhihin wax umaataa waana jecel wiilkeena waxaan kale aniga jeclaan dhahay noo imo guriga nogolano faqriga waan ka baxnay dhibaatadii gaajada waan ka baxnay xamaaliga adna waad ka baxaysaa nooma maxaan kala sameeyay idinku wiilkina la hadladee waxaan sameeyaa qaan gabadha qodqodo inuu bilowday aniga waa la yaabanahay maxaa ka kaleysay moogi taan ma garanayo waxaan jiru sheegay wuxuu sheegay isaga sheeganay anu ma garanayo ana wiilka waan jeclaa maxaan ka leeyahay umaleel habeen waa soo qarwa روحي جعل قاضيه قحر ما إلين ما خوفني روحي جعل قاضيه مايا علي سيدا سيالين هاي سلعين واكو بريا محجري إيشيك يا أخي هادي هذا وحكا لفيرنين حتى ولا تنمضين فيري سولا شاميه حسن يقول العناسة وحجر إيشك وكبر يايا وحجر إيشك هاي سلعن وكبر يا ولا تنمو درت حتى يقول شك يقول يا أنا اللي صوت المامين ورا جوك يا محمد عيلو جوك أنت اللي يوسف هجاجا يا أخي تلو هجاجا قريان ما ويدين كرا وانكو قصبنا إنا راذي وهاي لبدان بردن ما أركن waxaa macquul marka inuu xanuunsan yahay inay wax kale ku dhaceen gurigiisana ma kasay isagana waa fadiida inuu guriga iraaco saaxiibkiis ajax leeyahay ay arkay hadda ajax arki lahaa waa beheli lahaa bay aqi ajax leeyahay ay arkay waa la gacan gale ajax leeyahay arkay عيني اي ورنبه انت ياكو كاينين علي عربي علي ابرب
hantida laakiin tiitinka yaa kusoo mootay soo mooda cali sheegay intaan markana ma xanuunsiyaa qinteeda gintiin gurigiina tusbal anaa ku tusaa horta laakiin tiitinkan see kusoo moodi horta gurigii tus yaa qintiina noo dambe amas kugu aruuri macnaa meelaha amaska galgali maya tus guriga eeniyey mininka inta waay hay soo bixi cali waa jiran yahay tacbaan waay mininka waa kana kan miya haa kan waay mininka oo anaa gelaya tartiib adaa ku boodaya maya suu jiriyaan rabaa inaan soo arko walaalkeeno waad ogtahay dhibku igu hay ninkaas eeniyey horaa waxaa loo yidhi lama kala baridi kala warla dhibka kaligaa muku haya wallahi usna waa haya usaa weliba daranoo tacbaan ahoo jiifa laakiin waad ogtahay dhibku igu hay wuu iga diidan yahay hooyo aabbayna ungey aan soo tuso isagoo intaas magaalada joogo marka intaas ka badan intee laga helaa ayniyey horta waxaa la yidhi ninba maamulkiisa meel layska wataa ma iyo xeraar calina maanta ilaahay waxaa iska dhigi nin caaqil ee ilaahayaab waxaas kumanaysi maskax fiican ii jira baxeenin usakaa daran hadda waa kuwayaala waxaa la isdiidooyaa walaashiisaa tahay reerkaaga maanta kuu dhisan inaskaa dumo ma ahe wax kale xumaan wallaahi bilaahi calooshiis ma ku jira ilaahay idinta halgaariyaan qabnaa allah anaga qaado haddana mininka waakaas luuqaasaa galaysaa irida waay holka lee waxaa leedahay iskolmi sunrise school ma inta loo soo guuriyaa leedahay teacher maxamed maa joogaya cabdiqaadir jacelo igma wax ku bartaa waa ani gaariga waxa waaye aan neef qabaa waa soo daaweeyaya akaysanaya u socda garab laakiin aniga waxaan ogaaday wix niyadaada ku jira maanta maxaad ka wadacayne ifahamsiin wax niyadeeda ku jira bal fiir waxaana sawiraa aad gurigaa ku dhagsatay oo aniga ma moodayn inaad sidaan aniga igu waalatay aniga waxaan islaa markaad kala tagteen jacaylkiina wuu baaba'ay laakiin ilaahay hadda jacaylkeenu wuu nool yahay adiga ayuu dhinacaa ka nool yahay waxay runaa kulleyba weligood inay qarsoomaan ilama ahayn qof walbana wixii u qoran wuu gafaayay aniga adiga calafkeennana intaas inuu ku ekaa ayaa macquul ah laakiin muhiimaddu waxay tahay wax walba oo kula soo gudboonaada inaad kartideeda lahaato sidaad uga gudbi lahayd aniga waxaan diidanahay inaad xumaata ii aragto aniga qof xun meeh weligay waan ku jeclaa mar walbana niyaddeeda kama bixaysid horta wax walbo siday u qoran yihiin ayay u dhacayaan siduu ilaahay ugu talagalana way u dhacayaan aniga adigana intaas ayaa calafkeenu ku ekaa waxaa qorneed inaan nin kale naagtiisa noqdo oo aan ilmo u dhalo taas ayaa qorneed marka wixii qoran lama yaabaayo waayo calafka sidiisaba caashiqa ayuu ka weyn yahay marka calafka qorna ayaa labadeena nagu dhacay anigana wax walba waxaa iga muhiimsan adiga farxaddaada waa farxaddayda cayni mar walbana niyadda ayaan kaaga soo duceeya laakiin abbaay annaga inuu kasta oo aan dad walaalaanahay haddana
isumaatinkeena waxaad moodaa inuu adiga mustaqbalkaaga tashwiish ku abuuri karo marka aniga tayada oo keliya inaan fiirsado maaha aan ku yidhaahdo meeshan iigu imo amaba aan kugu dhiirageliyataa waxaan kaaga digayaa mustaqbalkaada inaadan ku cayaarin odagaagan inuusan ogaan inaad hadda ka hor ii timid walaalo horta haddii aad mustaqbalkayga ka fikiraysid iyo haddii kale intaba waxaan kuu sheegaya aniga adiga inaan nahay dad walaalo ah walaaltinimadana ma ahan xiriir la baabi'in kara ama sahal ku baaba'ayo waayo aniga adiga dhiigayaa naga dhexeeya dhalashahana naga dhexayso wax walba haddii ay dhammaadeen dhalashada ma dhammaanayso sidaasay tahay meel walba aad joogtid waan kusoo salaamaya aniga wixii dhexdeena ku baabi'i lahaa maarkin oo aniga mustaqbalkayga ha iska baaba'o weligiisna iyuu dhismi mar walba waan kuu ducaynaya abuu caafimaadaan kuu rajaynaya haddana waan sii tagaa madaxdayga iska dhaaf barya wixii adiga dhib kuu keeni karo marnaba ku dhaaf waasaan kuu sheegay alxaasin aniga maalmahan mashquulkayga ayaa batay saaid problem aniga dhan fikir iyo murug ayaan ka bixi waaya waana dhanka dumaashida waayo daraad aniga safar ayaan ku maqnaa safarka markaan ka soo laabtay gurigaan imaaday xaaskayga way maqnayd aniga ayaa guriga ugu soo hormaray marka taasoo kalena waa qalad ilaa ay hadda waxaan la ahay meeshay aado waxay soo qabato asbaabaha ay canugayga keligiis guriga ugu tegayso maxaa dhacay aniga wax badan waanu dul qaatay maxaa yeelay aniga habeenkaan isku dhacaynay waan la hadlay iyadana qaladkeeda way qiratay balse ilaa ay hadda waxaan ku arkaa tallaabada hore inay ku socoto waayo caawa guriga way ka maqan tahay ilaa ay hadda ma soo laaban maxaa dhacay maxaa kalifay taas ilaa naag la qabo ilaa ay saacaddan gurigeed ay ka maqan tahay waa qalad sax waxay ku maqan tahay ma sheegi karo idhigii saaxiibkaygiiyo horta hore loo yidhi degdegsiina door ma dhasho waxaanna waa xaaskaagii ma habboona mararka qaar waxyaabo aan loo baahnayn inaad ku fududaato in aad samaysid marka qoftaanna cunug ayay kuu dhashay alxamdulilaah marka aniga waxaan kaa codsanayaa saaxiibkaygiio qoftan dumaashadii ah ha ku fududaan intaas oo keliya ayaan kaa codsaday saaxib hadalkayga dhegeyso aniga hadalkaaga iyo waanadaada waan qaadanayaa oo kuma dhahayo hadalkaaga ayaan ka soo horjeedaa balse caawa wixii ka bilowda waa inaan dabagal ku sameeyaa oo aan raadiyaa oo aan baaraa meeshay tegayso qofkay la kulmayso iyo waxyaabaha ay soo qabanayso tallaabo kasto ay qaadayso waa inaan ka daba qaadaa aniga kuma diidan hadalkaaga waan qaatay saaxiibkaygaa tahay waad i waanisay waanadaada kama horjeedo aniga waan kugu raxsanahay saaxiibkayga intaasaan kaa rabaa gadaal wixii ka soo baxo waa isla arki doonnaa laakiin ugu horrayntii mar sabar intaasoo keliya aan kaa helo waxaad ahayd nin shirkado soo qaban jiray familkaaga ma qaban weynin marka waa ku tuuga arrintaan ku fududaan baaritaan degdeg ah waa inaad samaysaa oo keliya haye cali caafimaad ka waran waan fiicanaha ba alxamdulilah haye waa soo dheeraata maantee hayaaqay meelahaan aan soo aaday micnaha waxaan xamroon uga soo doonay cunugayga yar ee cadnaan alaab ayaan uga soo doonay waa garta alaabta ma heshay waa haddaan raadin waya weli ma helin bal caafimaadkaaga ka war adiga aniga say isku dayaysaa wallaahi waa iska noole soo ma fiicnad abuu mar walba caafimaadaan kuu rajeynaa waa iska fiican alxamdulilah waxaa sheegta wadan caafimaadaan kuu rajeynaa mar walba adigana sidoo kale odagaada iyo waran caafimaadkiisa soo ma wanaagsan waa fiican yahay aniga xataa waan jeclaala inaan guriga imaadan hooyo aaba salaama laakiin waxaan ka cabsanayaa dhibaato xaggayga inay adiga ku soo gaarto waad iga diidinaya raadin haddaan sii baxaa maca salaam waa arkintaas caafimaad yaa maxaad tiri caafimaadaan ku rajeynaa na adigana maxaad iga fiirinaysaa indha adeegaaga weli waad sii fiirinaysaa soo maa yaa ani adiga halkan kuma xisaabtamayno gurigaan ku xisaabtamaynaa soo waxa garata maaha guriga iga hormar filinkaaga waan ogaaday waan ku soo dabaraacayay filinkana haddaan ogaaday hadda bax yaa us sharab noocan oo kale ayni afkiisu inuu ku salabo maaha biyo adigana yaa qabo bax gurigaan ku xisaabtamayna aan ku dheh fiya maxaad sugaysaa horteeda qabo laakiin laakiin ma saco saqajaan walaalo horta wax saaxo adigana dhegeyso baalkaaga hadda ayaan furayaa aniga filinkaagana buuggiisa haddaan laabayaa ani adiga sharciga ayaana kala saaraya maxkamadda ayaa inoo balana waa inoo berito iyo maxkamadda
ko jaabira kula hadlayo hay jabir maanta maxaad igu soo xasuusatay ii sheeg nin magaciisa la hayo Sid Cali ayaan doonayaa wadadeeda inaad ka leexiso nolol maad ku rabtaa mise geeri fancy nolol weliba nooc ceeriinka jabir ma ogtahay dhimashada inay tahay 10 milyan laakiin qofka haddii la garaacayo waa 15 milyan miisiin kartaa intaas haa waan ku ogolahay wax walba waa diyaar xaqiiq 10 milyan haddaan ku siinayaa shanta dhimanna hawsha markaad ii dhamayso okay waan ka ogolaaday mudane jabir waxaan rabaa ninka ciwaankiisa inaad siisid iyo meesha laga helo wuxuu degan yahay degmada xamarweyne waxaadna ka helaysaa agagaarka baarman shiibiyo salaaxya dheer ayuu leeyahay magaciisana waa Sid Cali waan ku fahmay waxaan kaa ballan qaadayaa ninkaas inaan waddada ka leexiyo okay okay adigan kugu ogahay سيد علي سرعة مشقينا ما استاذ حدا استاذ سكرت والله ما حي قربتين اما يقول دموسين adiga aan ku baahanahay anaga ma ogtahay inaan ku raadinayni oo ku gudalnaysan ku raadinayn anaga raadiskaaga ayaaba ku mashquulsanayn ma ogtahay taas horta waxa fahamsiin maskiina way iska dhigaa mar camalan ku dhakhtar maxay garabtiin waxa fahamsiin bal maskiin diraysin ikeen baf mar camalan ugu habeekan anaga waxaan u baahanahay inaan ku miirino sabab jaabir nantiis maxaa ku daba dhigay fahansiin waxaan naga dhahay malaaliig jaabir nantiis nin nantiis maxaa ku qasna sheegaysaa kibasri war ma aqaan hada you can انت شيء هل برس مطر انت شكرا شكرا ولا يلو بس شكرا انا استغربت شكرا نكي قلو نحن ما يعكو نحن نكي قلو ايه قواني قلنا على قواني وانا يقصو كار وانا يعني ننكو وايقا عرض فضيا ننكو نفع وطنك ورجوكس وحير ايه جوكس ركا داتاي جوكس نحن سنة كذا لا تكويالي بناتك وكذا وطودا ننك وربطا الشيء ابو حسينك قبوط ما يستر مع مطلع ايه قواني